wuxuu ku saabsanaan doonaa xidid saddex jibaar. Haddii uu mugga saddex jibaaran yahay 27 mitir oo saddex jibaarantay, maxaa uu noqonayaa dhererka dhinacyadiisu? Waa su-aal. Si aan u helno dhererka dhinaca saddex jibaarane, waxaynu u baahannahay inaan ogaano tirada saddex jibaarkeedu yahay 27. helidda xidid saddex jibaarka waa weydaarka saddex jibaarka. waxaynu ognahay saddex jibaarata inay la mid tahay 27. sidaa darteed 27 xidid saddex jibaarkeedu waa saddex jibaarantay. 27 xidid saddex jibaarkeedu waa saddex jibaarantay. taasna see ku dhacday? waxay ku dhacday, waxaa loo qoraa sidaan 27 saddex jibaarantay, ama waxaad raadisaa xidid saddex jibaarka 27. haddii lagu dhaho xidid saddex jibaarka 27 waxay la mid tahay waa 3, sababtoo ah 3 oo 3 mar laisku dhufto ay waxay la mid tahay 27. 3 haddii lagu dhufto 3 waa 9. 9 3 ku dhuf 27. sumadan waa xidid saddex jibaar, ama macnaheedu waa xidid saddex jibaar. la soco tusaalaha koowaad. waxaan raadinayaa xidid saddex jibaaran ee tirada 64. waxaan raadinayaa xidid saddex jibaaran ee tirada 64. furfuris 64 waa saddex jibaarka tirada 4, sababtoo ah 64 waxay la mid tahay 4 lagu dhuftay 4 lagu sii dhuftay 4, ama 4 saddex jibaarantay. 4 saddex jibaarantay waxaa laga wadaa 4 oo 3 mar laisku dhuftay. 4 ku dhufo 4 6 4 ku dhufo waa 64. xidid saddex jibaarana ee 64 waa 4, ama xidid saddex jibaarka 64 wuxuu la mid yahay 4. saan filayna waa fahamna maleyna. halkan u fiirso tusaalaha labaad. tusaale, waxaan raadinayaa xidid saddex jibaaran ee tirada 125. furfuris 125 waa saddex jibaarka tirada 5, sababtoo ah 125 waxay la mid tahay 5 haddii lagu dhufto 5 waa 25. 25 adigoo haysata haddii kusoo dhifato 5 waxay la mid tahay 125, ama 5 saddex jibaaratu waxay la mid tahay 125. sidaas darteed xidid saddex jibaaran ee 125 waa 5, ama xidid saddex jibaaranaha 125 haddaba waa 5. taas la soco. sidee ku saari karnaa? tusaale, waa maxay dhinaca saddex jibaaranaha oo muggiisa yahay 216 mitir? waa maxay dhinaca saddex jibaaranaha oo muggiisa yahay 216 mitir? 216 mitir oo saddex jibaarantay laga rabaa. muggu waa dhirir oo saddex jibaarnay. dhirirkan oo saddexda jibaaran muxuu yahay? waxaa lagu siiyay 216 dhirirka oo saddex jibaarmay. haddaba xidid saddex jibaarna 216 ayaan raadinaynaa. xidid saddex jibaarna 216 waa 6 oo saddex jibaarantay. sidaas darteed xidid saddex jibaaranaha 216 wuxuu la mid yahay 6 ayuu la mid yahay. waxaa ku fahmi kartaa xisaabtani soo eg. halkan u fiirsiya. haddaba waxaa lu dhahay waxaad raadisaa xidid saddex jibaaranaha 64. xidid saddex jibaaranaha 64 wuxuu la mid yahay 4. sidee ku dhacday? marka hore waxaan qaatay xidid saddex jibaaranaha la raadina ayaan qaatay waa 64 ayaan qaatay. waxaan u sameeyey tiro ayaan u qaybiyey. waxaan u qaybiyey tirooyinka tirada ugu yar wax loo qaybiyey had iyo jeer. waxa ugu yar labar labo baa ugu yar. haddii 64 tirada labo u qaybsamayso waa inaa u qaybisaa. xitaa dhammaan haddii u wada qaybsamayso waa inaa u wada qaybisaa. laakiin haddii labo u qaybsami weyso kadib waxaanu aadaynaa 3. haddii u qaybsami weyso kadib waxaan aadaynaa 4. balse haddii labo qaybsamays ba tagi karta tiro 4 ah. sidaas darteed 2 qofood ma loo qaybin karaa 64 shilin? waa jawaabtu waa haa. godkan iyo godkan isku qaybinaynaa. 64 shilin haddaan u qaybiyo 2 qofood waxaan helaynaa 32. okay, tiradii 2 ayaan kasoo baxnay. iyadoo mid kale cusub ayaan hubinaynaa. hadday qaybsamayso 2 ayaan qaybinaynaa. haddaysan qaybsameynin waan ka tegaynaa. 32 miyuu qasabtaa 2? waa haa. 2 qofood u qayb 32 shilin, qofkii wuxuu qaadanayaa 16 shilin. haddana hubi 2 kale ah.
اوكي لح يتوشن ملو قيمي كرا لو ها لو قفوت هدان قيمي لح يتوشن maxaan helayaa 8 ayaan helayaa okay 8 shilin mulu qeymin kara laba qofood ha 8 shilin hadaan u qeybiyo laba qofood maxaan helayaa qofkii wuxuu helayaa 4,000 ayuu helayaa 4 shilin miyuu qasbataa laba qofood ha laba qofood u qeyb 4 shilin qofkii wuxuu helayaa laba shilin miyuu qasbataa laba qofood ha laba shilin hadaan u qeybiyo laba qofood qofkii wuxuu helayaa 2 shilin halkaas ay ku dhamaatay marka xisaabtan ay waxaan u duweynaa maadaama xidid 3 jibaarna ay tahay saddex meel ayaan u duweynaa waxaan leenahay laba lagu dhuftay laba ayaan ka qaadanay laba lagu dhuftay laba ayaan dheena waxaan qaadanayna laba sidaas darteed fiiriya laba hadaan ku dhufto laba waa afar hadii ku dhufto laba waa 10 iyo waa 8 hadii lagu ku dhufto waa 16 16 laba hadii lagu dhufto waa 32 hadii laba lagu dhufto waa 64 mujida xidid 3 jibaarna 64 markaan tibxaan aan isku dhuftay wuxuu u imaaday si sax ah maadaama sidaas darteed ay tahay waxaan u duubayaa saddex meel maadaama xisaabta ay tahay 3 jibaarna ay tahay 3 meel loo duubayaa laba lagu dhuftay laba ayaan ka qaadanaya hal tiro halkaan laba lagu dhuftay laba ayaan ka qaadanaya hal tiro inta hal tiraan ka soo qaadaya waa labo inta hal tiraan ka soo qaadaya waa labo hadaan ku dhufto labo maxaan helayaa labo hadaan ku dhufto labo waxaan helayaa 4 sidaas darteed waxa ogaataa xidid 3 jibaarana 64 waa 4 oo 3 mar la isku dhuftay 4 lagu dhuftay 4 16 4 ku dhufo waa 64 midaan ku daraya halkaan fiir waxa lagu leeyahay 27 waxaad raadaysaa xidid 3 jibaarna 27 marka hore waxaan qaatay xidid 3 jibaarna aan qaatay oo 27 ayaan qaatay waxaan dhahay tirooyinka wax loo qiimo waxa ugu yar lambar 2 ugu yar okay laba halkaan keensaday laba meesha miyay u qasmataa laba ma loo qiimo kara 27 jawaabtu waa maya maadaama halkaan laba u qaybsamayso waxaan tagayaa laba tirada ku xig waa 3 hadaan halkaan 3 keeno laba 3 hadaan halkaan keeno 27 loo qiimo kara jawaabtu waa 27 shilin u qayb 3 qofood 27 shilin hadaan u qayb 3 qofood waxaan helayaa qofkii wuxuu helayaa 9 shilin ayuu helayaa okay lambarka aan ka soo shaqeeyay waa 3 hadaan godka labaad aan keeno miyay u qasmad kartaa 3 qofood miyaan u qaybin karaa 9 shilin jawaabtu waa 9 shilin u qayb 3 qofood qofkii wuxuu helayaa 3,000 ayuu helayaa sidaas darteed waa godkii saddexaad waxaan rabaa inaan hubiyo tirada aan ka soo shaqeynay maanta oo dhan haddii 3 qofood 4 ayaan tagaya sidaas darteed aan hubinayaa haddaan halkaan 3 keeno waaba keenay 3 qofood ma loo qaybin karaa 3 shilin jawaabtu waa 3 qofood u qayb 3 shilin qofkii wuxuu helayaa 2 shilin ayuu helayaa sidaas darteed waxaan u dheenaa 3 lagu dhuftay 3 hadii aan ku dhufto 3 waa 9 3 ku dhuf 27 hadda waxaad ogaataa tibxaha aan safay waa kuwa sax ah sababtoo ah 3 mar la isku dhufto waxay la mid tahay 27 maadaama xisaabtan aan u duubay 3 meelood hal meel ayaan ka qaadanaya sababtoo ah meel kale ma jirto 3 tir aan isku dhuftay ayaa hal tir ka qaadanaya waxaan ka qaadanayaa 3 sidaas darteed waxaa la socotaa xidid 3 jibaarnaha 27 xidid 3 jibaarnaha 27 wuxuu la mid yahay 3 ayuu la mid yahay waan fahmay amrayna wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.